gudoomiyaha maayarada caasimadaha wadamada islaamka isla markaana ah maayarka caasimada dalkani Jabuuti Marwo Faadumo Cawaale Cismaan oo ka qayb qaadanaysay xaflad ballaaran oo lagu furayay goob ballaaran oo ubadka wadankani Jamhuuriyadda Jabuuti ay ku damaashadaan loona sameeyay qaybaha kala duwan ee ubadka ay ku ciyaaraan oo dawladda Talyaaniga ay ka hirgelisay bartamaha caasimada dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa sidoo kale ka qayb qaadanayay wasiiradda difaaca ee dawladda Talyaaniga Madam Elisabeth Taranta iyo sidoo kale wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dawladda Talyaaniga xafladan ballaaran oo lagu soo daawadsiiyay qaybaha kala duwan ee goobahaasi ay dawladda Talyaaniga ka hirgelisay dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti mas'uuliyiintii kala duwan ee goobtaasi ka soo qayb galay ayaa waxa sidoo kale goobtaasi ku sugnaa xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti intii lagu guda jiray xafladaasi ayaa mas'uuliyiintu dhamaanba waxay isla qireen dhibaatada weyn ee ka dhacday gudaha wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir oo ay tilmaameen inay ahayd tacaddi argagixiso oo aad u weyn waxayna sidoo kale Faadumo Cawaale Cismaan oo iyadu gabagabadii kulankaasi halkaasi hadal ka jeedisay ay warbaahinta kula hadlaysay ayaa waxa ay sheegtay in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow uu ahaa mas'uul firfircoon isla markaana ku haboonaa shaqada uu hayay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. intaan ka hadlin maanta shucuurteeda waxaan horta jeclaysan lahaa inaan tacsiyadeeyo maxaan ku raadayay tacsiyadeeyo maaragtay ka baxeen gudoomiyaashii maaragtay ee gobolka Banaadir waxaan horta aad iyo aad aan ugu maaragtay aan leeyahay intii dhimatay ilaa uu naxariiso inta xanuunsanaysa aan badi ku dhaawacantayna ilaahay caafiyo khaasatan waxaan ilaahay u weydiinayaa caafimaad walaalkay injineer Yariiso oo aad iyo aad maaragtay anigu aanu ahaa qof taageersan qof shaqana ahaa waxaan ka leeyahay maayarka magaalada Muqdisho amba Banaadir ilaahay ha caafiyo waan u soo ducaynaynaa anagu haddaan nahay reer Jabuuti waxaan leenahay ilaahay ku caafiyo adiga iyo intii maaragtay kula shaqeynaysay dhaawac halka uu ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xafiiska maayarka ee magaalada Muqdisho waxa sidoo kale ayana goobtaasi hadal ka jeedisay wasiiradda difaaca ee dawladda Talyaaniga Madam Elisabeth Taranta. Sono molto felice di essere qui insieme alla vice ministra degli esteri Emanuela Del Re, insieme al comandante della base, insieme al sindaco di Djibouti, insieme al ministro della difesa di Djibouti e al ministro degli esteri, a tutti i parlamentari e soprattutto insieme ai bambini di Djibouti. Da oggi avranno un parco dove giocare senza pagare liberamente, dove crescere in sicurezza. Siamo molto contenti perché questa è l'amicizia dell'Italia nei confronti di Djibouti. Mikhail Abdirashid Barre, Radio Televisione Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.